السلام عليكم. حدودها yaa dhigay xuduudaha u dhaxeeya dawladaha kala duwan maxay u jiraan xuduudaha u dhaxeeya dawladaha haddii aad isleedahay xuduudaha u dhaxeeya wadamada muslimiinta waxaa dhigay isticmaarka haddaba yaa dhigay kuwa u dhaxeeya ummadaha kale xuduudka Faransiiska iyo Jarmalka Kuuriya iyo Shiinaha Mareykanka iyo Kanada wadamadan waa tusaale waxaana la mid ah wadamada kale ee caalamka loolanka caalamka maanta ka taagan iyo kuwii ka dhacay boqolkii sano u dambeeyay waxaa sabab u ah inta badan khilaaf dhinaca xuduudka dagaalkii koobaad iyo kii labaad ee adduunka sababta dhabta ah keentay waa loolan xuduudeed iyo dhul ballaarsi soodin ama xuduud waa khad aanan muuqan oo bani aadam ku dhigay laakiin sumad loo yeelay sida xariiq derbi silig iyo wixii la mid ah wixii ka horreeyay qarnigii 17aad lama aqoonin xuduudaha la yaqaan maanta caalamku isu furnaa cid walbana meeshii ay rabto ayay u gudbi jirtay markii laga soo taga kala qaybin ummad lagu sameeyo inta badan in xuduud dawladeed samaysmo waxaa sabab u ah wadaagidda qowm ama ummad luuqad iyo diin in ay jiraan wax kulmiyo inay dhahan tusaale inteenaan waan isleenahay xuduudkanaguna waa inta ku eg wixii afkeenna ku hadlo meesha ay degaan sayid moxamed mar uu tilmaamay xuduudka Soomaaliyeed wuxuu ku tilmaamay in uu yahay koonfur meesha ugu dambeysay ee qof Soomaaliya dego galbeedna meesha ugu dambeysay qof Soomaaliya dego bariga iyo waqooyigana xuduudka Soomaalidu yahay badda xilligaas ma jirin xuduudaha maanta xariiqan waana mid uu ku cabirayay sayidka oo ah in xuduudka Soomaalidu uu yahay meesha ugu dambeysay qof Soomaaliya dego dhinaca kale si ka sii faahfaahsan in xuduud samaysmo waxaa sabab u ah qodobadan soo socdo kow arrin la xiriira dabeecadda dhulka ay ummad ku nooshay in qaab juqraafi keeno in ummad u aragto xuduudkeeda wixii ka soo ragan tusaale webi bad silsilad buura tusaale ahaan Japan waa jasiirada ay degaan dad hal af ku hadlo laguna magacaabo Japanese dhinacyadana waxaa ka jira bad sidaas darteed xuduudkoodu waa jasiiradahaas ay degaan dadkaas isku afka ee Japan lagu magacaabo ma jirto cid bani aadam oo xariiqday xuduudka Japan markii laga reebo waxyaabaha badda la xiriira waa mid dabiici ah oo Ilaahay dejiyay qodobka labaad xuduud qowmi ah xuduud u samaysma qaab qowmi ah ummad hal wax wadaagto sida luuqad asal sidaan sheegnay qarnigii 18aad Faransiisku wuxuu ahaa quwadaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub wuxuuna u dhul ballaarsaday dhinaca Jarmalka haddaba Jarmalku si uu u badbaadiyo dhulkiisa una calaamadeeyay xuduudkiisa wuxuu yiri waxaa xuduud noo ah meesha uu ku nool yahay qofka Jarmalka waa qaab qowmi ah taasoo ah in inta dadka Jarmalku degaan ay tahay xuduudka ummadda Jarmalka Faransiiskuna soo dhaafi karin qaabka saddexaad ee keenay in xuduud samaysmo waa kala qaybsi dhul ummad kale leedahay in quwado kale qabsadaan ummad kadibna ka sameeyaan xuduudo ay quwad walba ku calaamadeynayso dhulka ay ka qabsatay ayagoona fiirinaynin ummadda halkaas degto iyo waxa ay tahay dhaqankooda diintooda taasoo keenayso in xuduudku kala jaro tuulo deegaan ama magaalo dad ehel ah ku wada nool yihiin habeen iyo maalin ay arkaan ayagoo laba wadan loo kala qaybiyay tusaalaha kuugu filan dhulka Soomaaliyeed 5 qaybood ayaa loo kala goostay xuduudaha la dhigayna wuxuu ku dhisnaa aqaliyada Talyaani haddaan ah intaan ayaan leeyahay Ingiriisna intaan ayaan leeyahay Faransiisna intaan ayaan leeyahay waa sida lagu sameeyay inta badan wadamada muslimiinta ee isticmaarku kala qaybiyay waa xuduudo ku dhisan sidii hanti tuuga dhacday kadibna kala qaybsatay waa bililiqo la kala qaybsaday qodobka afaraad ee keenay in xuduud samaysmo waa maquunin iyo xoog ku qabsi in dawlado ama ummado dagaalamaan kadibna mid xoog lagu maquuniyo kadibna xuduudkaas si qasab ah looga saxiixo xuduud ayna raali ka ahayn waxaana tusaale nool noogu filan Mareykanka iyo Mexico gobolada Mareykanka ee koonfureed inta badan waxaa laha Mexico kala bar dhulka Mexico maanta dhul leeg ayuu Mareykanku ka qaatay haddaan tusaale u soo qaadano gobolada California Nevada Utah New Mexico Texas waxaa laha Mexico dhammaantood ama intooda badan xitaa qaybo ka mid ah Arizona Colorado Oklahoma Kansas waxaa iska laha Mexico heshiis maqaar saare kadib maquunin dagaal ayaa Mexico looga saxiixay xuduudkaas xuduudaha laba ayaa loo kala qaadaa xuduud badeed iyo xuduud berri xuduudka berriga waa naqaana dhulkaas angegan ee u dhaxeeyo laba dal dhinaca kale dawladaha badaha leh waxaa caalami ahaan loo ogol yahay in ay badda dhulkeeda ku aadan yahay
mid ay iyadu leedahay ilaa 20 kiiloomitir qiyaastii wixii 20kaas kiiloomitir ka baxsanna waxaa lagu tilmaamaa biyaha caalamiga cid gooni u leh ma jirto sidaas darteed ciddii dooni dhex socota biyaha caalamiga ah wax yeesha waxaa loo arkaa xadgudub iyo ku dhawaaqid dagaalkii Vietnam iyo Mareykanka wuxuu ku bilowday kadib markii uu Mareykanku sheegay in markab uu leeyahay lagu weeraray biyaha caalamiga ee gacanka Tonkin ee Vietnam kuna eedeeyay waqooyiga Vietnam Lyndon Johnson madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas oo dagaalka ku dhawaaqayo arrinkan dartii My fellow American, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile action against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin. dhinaca buuraha waxaa jira silsilado buuro ah oo taxan masaafooyin badan matalayana xuduud dabiici u ah oo u dhaxeeya laba dawladood xuduudka Hindiya iyo Shiinaha waa buuraha Himalaya oo ah soodin dabiici ah labada dal u dhaxayso sidoo kale Argentina iyo Chile waxaa xuduud u ah buuraha Andes oo ah silsilad taxan 10 kiiloomitir qaaradda koonfurta Ameerika wabiyada sida buuraha oo kale ayaa loo adeegsadaa xuduud in laba dawladood isku afgartaan ama duruuftu keento in webigu noqdo soodinta u dhaxaysa labadaas dal bariga Yurub waxaa mar webiga Danube oo inta badan xuduud dabiici u ah wadamada bariga Yurub sidoo kale Afrika wadamada Mauritania iyo Senegal waxaa kala qaybiyay webiga Senegal oo xuduud u ah sidoo kale waxaa jira wadamo badan oo webiyadu u yihiin xuduud Thailand iyo Cambodia sidoo kale halkan si walba oo ay ku imaado xuduudahaas dawladaha xuduudaha leh waxay yihiin laba nooc ama xuduudahaas waa laba nooc mid ah xuduud furan oo kaliya calaamadaysan laakiin dadku isu gudbi karaan sabab iyo sabab la'aanba sida ka jirta inta badan wadamada Yurub oo aad arkayso hal maqaayad oo xuduudku dhex maro sida Holland iyo Belgium laakiin isu furan dhanka kale waxaa jira xuduudo kumanaan askar fadhiyaan xiran madaafiicna ku foorarto waana inta badan wadamada loolanka dhinac xuduudka u dhaxeeyo haddii lagu weydiiyo xuduudka ugu dheer ee dhex mara laba dal ama laba dal ay wadaagaan waxaad ogaataa inuu yahay kan u dhaxeeya Mareykanka iyo Canada xuduud gaarayo ku dhawaad 9,000 oo kiiloomitir waa masaafo aad u dheer wadamada Shiinaha iyo Ruushka mid walba wuxuu xuduud la leeyahay dhowr iyo 10 dal taasoo keenayso in balaayin lacag ku baxdo ilaalada xuduudka dal walba wuxuu u baahan yahay xuduud looga gudbo dhisida meelaha laga galo shaqaalaha ciidanka jooga iyo dadka ka shaqeeyo waa hawl